kulantisan saaxiibayaal halkan waa xulashada wararka oo aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya guud ahaan caalamka qodobada iminkadana daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo u muuqda inuu ka gudbay xujadii ugu adkeyd ee hortaalay haddaba xog soo baxda ayaan idin faahfaahin doonaa ciidanka Itoobiya oo mar kale si xun u duqeeyay caasimadda Tigreega waxaad kalood muuqaalkan kaga bagan doontaan maxaa fashilay waawaantii laga dhaxwaday haloosanayay maamulka Galmudug ee uu hogaamiyay Qorqor xogihii ugu dambeeyay ayaan idin faahfaahin doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah al-shabaab qodobadan oo faahfaahsanayad muuqaalkan kaga bagan doontaan fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad hore noola joogteen si share garay muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro igu bogtaan waad ku mahadsan tahay daawashadaada wacanaynu ku bilaawno Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa tani markii uu la wareegay xilka waxa uu wajahayay xujooyin dhowr ah iyadoo midii ugu adkeyd ee doorashada uu qarka u saaran yahay inuu ka gudbo waxa xilligan muuqata inuu miro dhalayo dadaalkii Roble ee doorashada oo bishii May ee sanadkan uu hoggaankeeda kala wareegay madaxweynaha uu mudxeleedkiisa dhamaaday isagoo la kulmay culays iyo cagajiid dhinacyo badan ah maamulka Jubbaland ayaa shalay soo dhameystiray xubnihii ku harsanay aqalka sare ayagoo ka jawaabaya baaqa Ra'iisul Wasaaraha sidoo kalena maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in Galmudug ay shaaciso liiska labada xubnood ee ka dhiman xubnaha ku meetali doona aqalka sare beesha caalamka ayaa garab weyn u noqday dadaaladii Roble ayagoo u arka inuu yahay shakhsiga kaliya ee ay ka go'an tahay hanaanka doorashada iyo inay waqtigeeda ku dhacdo Roble ayaa lagu wadaa in 48 saac soo socdo uu shirqadka taleefanka uu la qaato madaxda maamul goboleedyada isagoo ka doonaya in muddo sax ah loo sameeyo bilaabashada doorashada golaha shacabka oo si weyn u daahday xogta ayaa intaasi ku sii daraysa in maamulka Jubbaland uu mar kale noqon doono maamulkii ugu horeeyay ee qaybta doorashada golaha shacabka iyadoo sidoo kale lagu wado inay ku xigi doonaan Hirshabelle iyo gobolada waqooyi inkastoo lacagihii lagu qaban lahaa doorashada golaha shacabka aan la wada helin ayaa haddana waxaa la xaqiijiyay inay taalo lacag yar oo lagu sii bilaabi karo howlahaas waxaana la filayaa in beesha caalamka ay degdeg u bixin doonaan dhaqaalaha dhiman haddii ay arkaan dhaqdhaqaaq dhab ah oo ku aadan doorashadaasi Roble Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa haddii uu ku guuleysto in laba maamul goboleed ka bilaabo doorashada golaha shacabka ka hor bisha 12aad waxay ka dhigan tahay inuu toos u xaqiijiyay tareenka doorashada wuxuuna sidaas kaga gudbi doonaa xujadii ugu adkeyd ee xilliga kala guurka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya oo xilligan shaqadiisa u weyn tahay in dalka ka gudbiyo xilliga adag iyo inuu qabto doorasho cadaalad ah ayaa waxa muuqata in dulqaadkiisa uu ka gudbinayo xarigjiidka maamul goboleedyada ee doorashada golaha shacabka iyo hagardaamooyinka kale ee uu la kulmayo dhanka kale gudoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka oo uu hore u magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saaray doorashooyinka bilowday gaar ahaan tan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha guddigan oo lagu magacaabo Batuula Sheekh oo wareysi bixisay ayaa sheegtay in doorashada ay si tartiib ku socoto isla markaana ay wali qabyo tahay qoondada loo xiray haweenka oo ahayd in la gaarsiiyo 30% sababtu waxay ku sheegtay in kuraasta ay ku badan yihiin ragga murashaxiinta ah sida hadalka u dhigtay dhinaca kale waxay rajo wanaagsan ka muujisay doorashada golaha shacabka ee dhawaan la gudagali doono waxa ayna shaacisay in ay tahay 3 kursiba mid ay ka soo baxdo gabar si loo fuliyo heshiiskii hore loogu gaaray qoondada haweenka hadalkan wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo haatan ay gabagaba marayso doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana la gudagali doono mid golaha shacabka ciidanka Itoobiya ayaa mar kale si xun u duqeeyay caasimadda Tigreega ciidamada dawladda federaalka ee Itoobiya ayaa mar kale weerar dhanka cirka ah ku qaaday magaalada Mekele caasimadda u ah maamulka Tigreega ee dagaalka kula jira ciidamada dawladda Itoobiya diyaaradaha Itoobiya ayaa duqeynta la beegsaday bartamaha magaalada halkaas oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka TPLF iyo dad shacab ah muuqaalo la soo duubay markay duqeynta ka dhacday magaalada Mekele kadib ayaa la arkayay qiic madow oo cirka isku sii shareeray waxaana goobaha ay diyaaradaha duqeeyeen ka mid ah goobo ganacsi ilaa hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay duqeynta maanta dhacday waxaana la xaqiijiyay inay gubteen goobo ganacsi
baabuurta dabdamiska ee maamulka Tigreega oo gurmad ahaan u soo gaaray goobaha la duqeeyay ayaa ku guuleystay inay damiyaan dabka. waa markii labaad oo isbuucan gudihiisa ay diyaaradaha dalka Itoobiya duqeymo ka geystaan magaalada Mekele. hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa ku eedeynaya dowladda Itoobiya in ay xasuuqayso dad shacab ah, wuxuuna weli Abiy Ahmed ku adkeysanaya inuu sii wado dagaalku uu kula jiro maamulka Tigreega oo hadda gacanta ku haya maamulkooda. weli waxaad daawaneysaan wararka janalka xulashada wararka. maxaa fashiliyay waanwaantii laga dhexwaday ahlu sunna iyo maamulka Galmudug? waxaa fashil ku soo dhamaaday waanwaantii laga dhexwaday ahlu sunna iyo maamulka Galmudug si loo qaboojiyo xiisada dagaal ee haatan ka tagan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. wararka ayaa sheegaya in fashil uu yimid kadib markii ahlu sunna ka laabatay go'aankeedii hore ahaa in ciidamadeeda laga saaro magaalada iyo in gaadiidkii ay ka qabsatay Galmudug wareejiso sida ay noo xaqiijiyeen ila wareediyo lagu kalsoon yahay. sidoo kale ahlu sunna ayaa ka biyadheeday in Gurceel lagu soo celiyo maamulka magaaladaasi ee dhinaca Galmudug sidaan xogta ku helnay. waanwaantan ayaa waxaa waday odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug, waxaana gebi ahaanba hakad galay dadaaladii socday. arrintani ayaa ugu sii daraysa xaaladda cakiran ee haatan ka tagan gobolka Galgaduud taasoo u dhaxaysa ahlu sunna iyo Galmudug. dhinaca kale wararka ka imaanaya Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in weli xaalad kacsanan laga dareemayo magaaladaasi oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda. ahlu sunna ayaa lagu soo waramayaa inay haatan xirtay wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa magaaladaasi Gurceel ee gobolka Galgaduud. ciidamada dowladda ayaa dhankooda isku hareereeyay Gurceel waxayna wadaan guluf dagaal oo ka dhan ahlu sunna wal jamaa. ugu dambeyntiina xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah al-shabaab. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu cambaareeyay falkii al-shabaab maanta ku gubeen gaari dameer dhowr ah oo ay raashin wadeen laga hor istaagay xilli ay ku wajahnaayeen magaalada Waajid ee gobolka Bakool. waxaan cambaareynayaa aadna ugu xumaay falka arxan darada iyo burcadnimada argagixisada al-shabaab ku gubeen raashin iyo hanti ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed duleedka degmada Waajid ee gobolka Bakool. waxay tani tusaale u tahay in kooxdani meesha ugu fog ka gaartay naxariis darada iyo u turid la'aanta dadka iyo xayawaankaba. falalka noocan ahna waxay soo taxnaayeen sanado badan oo ay kooxdu go'doomin ku haysay Waajid iyo deegaano kale, ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlayay arrintani. waxaan ammaanayaa ciidamada xooggan ee u gurmaday dhibanayaasha, waxaana la gudboon inaan meel ugu soo wadajeysano cadowga nolosha u diidan dalkeena, ayuu sidoo kale yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. dhinaca kale wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa waxa uu ka hadlay dhibtii loo geystay ganacsato alaab urarneed oo ay al-shabaab gubeen, wuxuuna ku tilmaamay arrinkaasi inuu yahay mid aad looga xumaado. hagaag daawadayaal, halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen janalka xulashada wararka. daawashadiina wacan iyo la socodkiina aduun aad ku mahadsantihiin. nabadgelyo.